waxaan fiidnimadan soo gaarnay magaalada Johannesburg madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo iyo wafdiga hogaaminaya oo ay ka mid yihiin wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah danjire axmed ciise cawad iyo agaasimaha guud ee madaxtooyada dr nuur diiriye xirsi fuursade wafdiga madaxweynaha waxay halkan u yimaadeen sidaan maanta warbaahinteeda kaga sheegnay inay ka qayb galaan caleemasaarka madaxweynaha la doortay ee South Africa mudana Cyril Ramaphosa booqashadanna waxaan uga faa'iideysanaynaa inta uu madaxweynaha halkan ku sugan yahay marka laga soo tago ka qaybgalka caleemasaarkaas inuu kulamo gaargaar la yeesho jaaliyadda ballaaran ee Soomaaliyeed halkan ku dhaqan iyo ganacsatada halkan ku sugan kuwaas oo runtii dib iyo dheefba wadankan ku qaba kulay dheefta ay ku qabaan Allah u siyaadiyo laakiin caqabadaha ganacsatada haystay waxyaabahaas oo dhan in wixii ay dawladda ka geysan karto in laga gudbo inaan ka shaqeyno marka waxaan rajaynaynaa booqashadan labada maalmood soo socota madaxweynaha uu ku joogi doono halkan iyo caleemasaarka uu berri uga qayb galay aroortii magaalada Pretoria inay noqon doonaan booqasho miro dhal ah oo runtii danihii iyo ujeedooyinka halkan aan u nimid aan ka gaarno waa mahadsantihiin